kulan wacan daawadayaal halkan waa janalka dalka TV Media qodobada wararka daawad doontaana waxaa kamid ah gudoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha oo war cusub ka soo saaray jadwalka doorashada iyo aadan madoobe oo soo jeediyay codsi ku saabsan doorashada madaxweynaha golaha nabadda iyo ammaanka ee midowga Afrikana digniin culus ay u direen al-shabaab iyo qaybta dambe warkeena oo aad ku daawad doontaan maxaad ka ogtahay daawade dhaarta la yaabka leh ee la marsiiyo xildhibaanada Soomaaliya waa 6 bisha May sanadka 2022 daawadayaal halkan waa janalka dalka TV Media qodobada maqasheen waxay ahaayeen kuwa ugu door corona warka janalka fadlan daawada hadda nagu cusubta nagu soo biro kamid noqo saaxiibada sida joogtada weelo wararkii warbixinada 24 saacan ku baayno janalka YouTube-ka dalka TV Media aragtidiina halkaas nagu reebo muuqaalkana si share gareeya laakiin waa inoo muhiim daawadayaal haatan ku soo dhawaada qodobada maqasheen oo faahfaahsan gudoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha ayaa war cusub ka soo saaray jadwalka doorashada halka aadan madoobe uu u jeediyay codsi ku saabsan doorashada madaxweynaha Soomaaliya cabdiqani geele oo ah gudoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in muddada 10 maalmood ay soo socotay ay ku qaban doonaan doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee ku filan tahay musharaxiintu inay isku diyaariyaan gudoomiyaha wareys gaar ah bixinaya isla markaasna la weydiiyay sida muddadaasi kooban ay ugu qaban karaan doorasho ay ku tartamayaan ku dhawaad 30 musharax ayuu yiri waxaan tixraac ku sameynay tii gudoonka baarlamaanka oo tiradoodu inta ay ka badneed waqtiguna oo inta aad iyo aad uga koobnaa waan isbarbar dhignay waxaan noo soo baxday inay ku filan tahay waqtigan u qabanay ayuu yiri mar wax laga weydiiyo waxa uu qorsheysan inay sameeyaan hadii doorashada ay ku dhici weyso waqtiga ay u qabteen ayuu ku jawaabay insha Allah way ku dhici doontaa musharaxiinta tartamayo waa la yaqaan waa ay isku kay dul saaran yihiin ma jirto waqti aan anaga luminay musharaxiinta iyo xildhibaanada dhan waa ogol yihiin waxaana xataa la shaqeyn karaa habeen wax naga qaldan ma jiraan hadiiba ay noo joogaan musharaxiintii gudoonkii baarlamaanka iyo xildhibaanadii ilaahay kama rajeynayno dib u dhac iyo in waqtigii aan qabanay ay wax ku dhici waayaan ayuu sii raacay hadalkiisa gudoomiye cabdiqani ayaana sheegay inay ku guda jiraan xalka xildhibaanada laga soo kala doortay Ceelwaaq iyo Garbaharey si aysan mar kale u dhicin isqa qabsi iyo inay saameyn ku yeelato kulanka lagu dooranayo madaxweynaha Soomaaliya cabdiqani oo wax laga weydiiyay cid ay musharaxiintu u dacwoonayaan hadii ay ku qanci waayaan natiijada doorashada ayaa yiri waxa jiro habraac diyaarsan oo doorashada lagu galayo ma jiraan wax naga qaldan wadanka doorashooyin badan ayaa ka soo dhacay tii ugu horeysa ma ahan wax walbana waxa ay ku socdaan sidii hore oo la casriyeeyay ugu dambeyntii gudoomiyaha ayaa cadeeyay in doorashada madaxweynaha Soomaaliya ay ka soo qayb galayaan xubno ka socda beesha caalamka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliya dhanka kale gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe oo magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya ka wada ololaha doorashada ayaa markan la kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka kulankan oo ka dhacay hooyga uu Sheekh Aadan Madoobe ka degan yahay magaalada Muqdisho ayaa waxa looga hadlay kaalinta ay ururka bulshada rayidka ka qaadan karaan arrimaha doorashada madaxweynaha dalka gudoomiye Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa ururada bulshada ka codsaday inay kala shaqeeyaan sidii dalka ay uga dhici lahayd doorashada madaxweynaha oo lagu balansan yahay 15 May ee sanadkan ururada bulshada ayaa gudoomiyaha baarlamaanka oo balan qaadeen inay ku garab siiyaan doorashada intii ay awoodaan waxayna gudoomiyaha cusub uga mahadceliyeen waqtiga uu geliyay doorashada Soomaaliya sidoo kale gudoomiyaha ayaa ku booriyay bulshada rayidka inay kaalintooda horumarineed ee si laba jibaaraan si dalka looga bixiyo xaaladaha khatarta ah ee uu wajahayo gudoomiyaha golaha shacabka ayaana tan iyo markii la doortay kulamo kala duwan oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka wada iyadoo muddo koobanna ay ka harsan tahay doorashada madaxweynaha doorashada Soomaaliya ayaa waxa ay soo jiitamaysa muddo hal sano waxaana ugu dambeyn suuro gashay inuu dalka yeesho baarlamaan iyo gudoomiye taas oo dalka ka badbaadisay firaaq dastuuriya 15 May oo ku beegan maalinta Axadda ayaa la filayaa in la qabto doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo dib u dhacday sanad iyo 6 bilood geesta kalena golaha nabadda iyo ammaanka ee midowga Afrika digniin culus ayay u direen kooxda al-shabaab kulan ay yeesheen golaha nabadda iyo ammaanka ee midowga Afrika ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaano BSC ayaa looga hadlay weerarkii al-shabaab ku qaadeen saldhigga ciidamada ADMIS ku leeyihiin deegaanka Ceel Baraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe goluhu wuxuu dhageystay khudbadaha furitaanka wakiilka joogtada ah ee Jamhuuriyadda Cameroon u fadhiya midowga Afrika ahna gudoomiyaha golaha ee bisha May 2022 iyo ergeyga joogtada ah ee Burundi u fadhiya midowga Afrika
kuwaas oo warbixin kooban siiyeen golaha. gabagabadii kulankan ayaa waxa uu golahu si kulul u cambaareeyay weerarkii lagu qaaday ciidamada Burundi ee howlgalka ADMIS qaybta ka ah qaybtooda shanaad oo waxa ayna war-saxaafadeed ay soo saareen ku sheegeen in weerarkan aanu hoos u dhigi doonin dadaalka iyo howlgallada ADMIS. goluhu wuxuu carabka ku adkeeyay in midowga Afrika uu weli go'aansan yahay in uu la shaqeeyo dowladda federaalka ee Soomaaliya si meesha looga saaro khatarta al-shabaab iyo in la sii wado horumarinta nabadda, amniga iyo xasiloonida Soomaaliya. goluhu wuxuu tacsi tiiraanyada u diray dowladda iyo shacabka Burundi gaar ahaan qoysaskii ay ka geeriyoodeen ciidamadii ku dhintay weerarkaasi, waxayna u rajeeyeen caafimaad degdeg ah dhammaan kuwa ku dhaawacmay. goluhu wuxuu ammaanay ciidamada difaaca qaranka Burundi ee u huray nafurnimada ugu sareysa gudashada waajibaadkooda iyo nabadda Soomaaliya, gobolka iyo guud ahaan qaaradda Afrika. goluhu waxa uu sidoo kale ammaan u jeediyay dhammaan wadamada ciidamada iyo booliska ka joogaan ee ka howlgala ADMIS iyo gaar ahaan dhammaan ragga iyo dumarka ka hoos shaqeeya ADMIS. waxa uuna ku bogaadiyay sida ay uga go'an tahay gudashada waajibaadkooda. waxa uuna ku dhiirigeliyay in ay adkeystaan inta al-shabaab laga saarayo guud ahaan Soomaaliya. goluhu wuxuu hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo guulaha ilaa hadda laga diiwaan geliyay Soomaaliya iyo sidoo kale dardargelinta dagaalka lagula jiro al-shabaab iyo kor u qaadida awoodda ADMIS. waagaagii daawadayaal imikana waxaanu eegaynaa maxaad ka ogtahay daawaday dhaarta yaabka leh ee la marsiinayo xildhibaanada Soomaaliya. marka laga imaado dhaarta dastuuriga ah ee xildhibaanada, waxaa jirta dhaar kale oo inta badan musharaxiinta madaxweyne ay marsiiyaan mudanayaasha baarlamaanka, taasi oo ay ku damaanad qaadayaan inay codkooda siin doonaan. Dr. Cali Sheikh oo ka faalooda arrimaha siyaasadda gaar ahaan midda Soomaaliya oo ka hadlay arrintan ayaa sheegay in dhaarta labaad ee la marsiiyo xildhibaanada ay khilaafsan tahay midii hore. waxaad ku dhaarateen dhammaantiin inaad fulisaan danta guud ee ummadda, sidaas ayaa la rabaa inaad u tihiin oo ku fulisaan, laakiin sidii loo joogay ayaa waxaa timid dhaar la yiraahdo laaluush inaad codka isiinayso ii dhaaro ayuu yiri. labada dhaar marka in la kala daayo weeye oo dhaarta hore maxaa loo marinaa haddii aan laga dhaweynaynin dhaartii hore asal ayay ahayd ee dhaarta labaad adiga ayaa si qaldan u galay ayuu yiri. waxa uu u jeediyay xildhibaanada inay ku dhaqmaan dhaartii hore ayna ilaahay ka baqaan oo aysan codkoodana ku bedelan maal adduunyo oo ugu heeliyaan danta dalka iyo ummadda Soomaaliyeed. waxaa laga rabaa xildhibaan inta aad iswaansato marka aad tagto sanduuqa oo arinta ay tahay adiga iyo ilaahay aad tiraado ilaahayow been ayaan sheegay oo waan ka toobad keenay oo hebel ayaa ila fiican oo aan codka siiyo, toobadana waa ay furan tahay ayuu warkiisa ku daray Dr. Cali Sheikh. ugu dambeyntii waxa uu ka digay cawaaqib xumada ka dhalanaysa in la khilaafo dhaarta sharciga ah oo ay soo mareen xildhibaanada, taasi oo uu qofku ku mudanayo ciqaab xagga Allah ah. hadalka Dr. Cali Sheikh oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ayaana imaanaya xilli lagu guda jiro marxaladii kala guurka ah ee Soomaaliya, isla markaasna la filayo dhawaan in la qabto doorashada madaxweynaha Soomaaliya. musharaxiinta isku soo taagay xilka madaxweynaha ayaana inta badan wadaan sidii ay u kala jiidan lahaayeen xildhibaanada baarlamaanka, kuwaas oo dadaalkooda ugu badan ku bixinaya codadka xildhibaanada oo ay lacag badan kala siisanayaan. guud ahaan daawadayaal wanageynta warkii oo aad kala socoteen janalka dalka TV Media. daawade haddana ugu cusubtaan ugu soo biro kamid noqon saaxiibada sida joogtada weela wararkii warbixinada 24 saacan ku baahino janalka YouTube-ka dalka TV Media. aragtidiina halka hoos noogu reeba muuqaalkana sii share gareeya, laagtiina waa inuu muhiim daawadayaal, waana ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka oo arka janalka.